يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. dadka bisha Ramadaan sidee bay u qaabilaan ama imsa nooc bay noqdaan? Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadkiisa uu ku waajibiyay cibaadada bisha Ramadaan waxa ay noqdaan dhowr qaybood. qaybi waxa weeye bisha Ilaahay subhanahu wa ta'ala way garataa. Ilaahay subhanahu wa ta'ala cibaadadiisa ay la timaadaa. Ilaahay subhanahu wa ta'ala madrasad hadiyad ah oo u timiday oo marti ah oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala u soo diray inay bisha Ramadaan tahay ayay gartaan. kuwaasina waa kuwa Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu la hadlayo oo la khitaabtamayo uu leeyahay la'allakum tattaquun. waxayna rajaynayaan inay taqwo helaan. qolada labaad waa qolo Ilaahay bisha Ramadaan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala fadligaas oo dhan uu dhex dhigay waxa weeye ayay u arkaan in ay tahay mashaqo iyo dhibaato oo macaasi oo dhan baa laga yaabaa inay bisha Ramadaan la yimaadeen. waxayna leeyihiin aqligooda ayay ka dhaqaaqayaan oo waxay leeyihiin adduunku uu hormaray waxa waaye xilli cibaado la isku ijbaariyay ma joogno waxa waaye iyo wixii la midka qofkaasina waxa uu iloobay Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu adoon u yahay. Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu adoon u yahay ayuu iloobay. sidaa darteed Ilaahay adiga waxaad adoon u tahay wixii samee uu ku yiri in aad samayso. wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. cibaadada Ilaahay baad adoon ugu tahay. soonka oo samayso salaada oo samayso ayaad adoon ugu tahay. waxa kaloo iloobay Ilaahay subhanahu wa ta'ala shay ma waajibiyo ama shay ma abuuro illa waxa waaye ama shay ma sharciyeeyo diinta islaamka illa wa kullu sharaa'ic al-islaami yusrun. sidaa darteed waxa weeyaan dadkaasi waa inay Ilaahay subhanahu wa ta'ala u soo laabtaan. soonku waxa uu ku dhaboobay oo ku waajib ku yahay kitaabka Ilaahay iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo ijmaaca ummadda muslimiinta. Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayadii ka sheekaynaysa yaa ayuha alladheena aamanu waa ka soo sheekaynay. sidaa darteed waajibkaas oo dhan qofkaasi ka tagay ijmaacaas uu diiday waxaana la isku raacsan yahay oo ummadda islaamku ku kulansan tahay qofka soonka diida oo inuu waajibnimadiisa diida inuu xarada islaamka ka baxayo. qolada saddexaad waa qolada u aragta Ramadaankan iyaga oo waxa weeye kasal iyo waxa weeye ku jira waxyaabo kale in uu yahay mid badan oo la awoodi karin. qoladana waxaan leenahay shaytaan baa ka xoog batay. Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha cuskadaan. Ilaahayna subhanahu wa ta'ala ha kaashadaan. cibaadadiisana ha la yimaadaan. hana ogaadaan in ay tahay bishani madrasad rabbaani ah oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu talagalay insaanka inuu isku bedelo oo min ahsan ila hasan waxa way min hasan ila ahsan isugu bedelo. sidaa darteed bisha Ramadaan waa madrasa ilaahiya oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka u soo diray oo minxa rabbaaniya ah. idan inagoo taa ka dhaqaaqayna Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala kitabkiisa fi ulum waxa way wuxuu ku sheegay dadka inta ay u qaybsamaan ayuu u qaybiyay. wuxuu u qaybiyay saddex nooc. qaybta koobaad waxa uu dhahay waxa weeye dad sooma soom caam ah waa iska sooma waxa weeye ahkaam fara badanna inuusan ilaalinin baa laga yaaba si caadi ayuu isaga sooma. qolada labaad waa qoladaas waxa weeye waxay soomaan soon khaas ah oo kuwaas way ka sokeeyaan waxyaabihii muhiimka ahaa bay ilaaliyaan laakiin waa laga yaabaa iyaga laftoodu darajadii la rabay inaysan gaarin. qolada saddexaad waa qolada uu ku tilmaamay khusuusul khusuus dad gaar ah oo waxa waaye si gaar ah. dadkaasi waa dadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala cibaadadiisa dhaba u fahmay. Ilaahay subhanahu wa ta'ala bisha uu barakeeyayna waxa waaye uu qadariyay cibaadadii la rabayna la yimaaday. Ilaahayna subhanahu wa ta'ala inay iyago nadiif la kulmaan rajaynaya weeye oo Ilaahay ridahiisa iyo liqaagiisa mar walba bay soo dhigaayo oo dareensan. idan inagoo kuwaas ka duulayna waa inaan noqonnaa qolada dheeraysay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala isu dhiibtay amarkiisana fulisay Ramadaankana waajibkiisii ka soo baxday bal cibaadaadkii waxa way waajibka ahaa kuwa ka badan la yimaaday bisha barakaysan.
الله يرانا ويسمعنا، نغفر زلا نوصل أهل